نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا الموضوع سيدة الشيخي وحويه الصلاة عماد الدين. صلاة وتيرك إسلام كوين بعد الشهادتين كإردك لقصة وقالوا إسلام إلا بدأ الشهادة لقصة وقالوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. marka qofku islaamka ku soo galo tiirka ugu culus waxa weeye as-salaah, lafdhabartii islaamka wey. waxaana laga qaatay cimaadudiin inay tahay xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee tirmidi wariyey ee sanad saxiixa uu ku wariyey ee mucaad ibni jabal radia allahu tacaala canhu nabiga calayhi salatu wasalaam ka wariyey. xadiiskaas oo uu yihi nabigu calayhi salatu wasalaam: alaa adulluka calaa ra'si alamri wa camuudihi wa dirwatu sanaamihi, miyaanan kuu sheegahayn arrinka madaxiisa iyo tiirkiisa iyo lafdhabartiisa iyo meesha baarka ugu sarreeya, miyaanan kuu sheegahayn? markaasuu yidhi balaa ya rasuula allah. markaasuu ku yidhi ra'su alamri alislaam wa camuuduhu asalaah wacamuuduhu asalaa. camuudkiisa lafdhabartiisa tiirka lagu taago, teendhadaha marka la dhisayo tiir ayaa dhexda lagaga taagaa. haddii kale ma istaagi karto teendhadu haddii kale ma istaagayso, way dumaysaa. guryuhuna acmida la-aan ama tiir la-aan ma dhisnaadaan, haddii kale way dumayaan. qofkana lafdhabarta ayaa haysta oo haddii kaleto uu isku jabaya, uu isku dhacaya. intaba waxa islaamka u ah oo islaam aanu la taagnaanayn waxa weeye salaada. haddii salaadii meeshay ka baxdo, islaamkii meesha uu ka baxaya, wuu burayaa, wuu jabayaa, ma taagnaanayo islaamka. sidaas ayaan u niri waa cimaaduddiin, waa tiirkii islaamka ee asalka ahaa. qofkii dhowray ee xifdiyey tiirkaas, islaamkiisii ayuu dhowray. qofkii dayacayna islaamkiisii ayuu dayacay oo halkaa kaga dayacmay. waxaa kaleeto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in islaamku 5 tiir uu ku dhisan yahay. 5 tiir inuu ku dhisan yahay. buniya alislaamu calaa 5: shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asalaa, iyo salaada oo la ogo. shahaadada iyo salaada, wa itaa'i zakaa, zakada oo la bixiyo, wa sawmi ramadaan, wa xaji lbeyti man istataaca ilayhi sabiil. waliba xadiiska cabdullahi bni cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu hormariya xajka, wuxuuna dabamariyaa soonka. waxa salaadu ay tahay xukun ahaan waa fardu cayn. qof walba oo muslima, rag iyo dumar, oo qangaara, oo caaqil ah, caqli leh oo miyir leh, waajib bay ku tahay, fard bay ku tahay. qof kasta sidiisay fardi ugu tahay.
qof ka gudi kara oo ka ridaya ma jiro qof walba isaga laga rabaa waa fardu cayn yani cayn kasta iyo qof walba ayaa looga baahan yahay waajibkaas inuu guto salaadu fadaa'il badan ayay leedahay haddaynu fadligeeda keliya ku soo koobno caawa inaynu ka hadalno ayaynaan dhammayn karin fadliga ay leedahay waa wax ilaahay caza wajalla ambiyadiisii oo dhan uu ku waajibiyey ambiyadiisii oo dhan ayuu ilaahay caza wajalla ku waajibiyey ummadihii hore ayaa lagu waajibiyey siduu ilaahay caza wajalla inoo sheegay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu اddiina xunafaa wayuqiimu الصalaata wayu'tu الzakaata wadalika diin اlqayima salaada inay ogaan waxyaalihii ilaahay caza wajalla ummadaha hore oo dhan uu faray wey sidoo kale ambiyadii ilaahay caza wajalla ayuu ilaahay caza wajalla uu ku waajibiyey oo faray waxayna ku ducaysan jireen ilaahay caza wajalla inuu ka dhigo kuwa salaada ooga oo aad ba u jeclahay siduu ilaahay caza wajalla nooga sheegay nabiy llahi ibrahim rabbi ijcalnii muqiima الصalaati wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa nabiy llahi muusa وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صلاةنا أوج حسكي أوج أي إله عز وجل وكان للضناء إن شاء الله تعالى فضائش هذا وحن إن شاء الله تعالى جعلها إن ظلمره آيات iyo axaadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan oo haabita oo saxiixa oo nebigu calayhi salaam salaada uu kaga hadlayo bal si aa u dhegaysataan oo inuu xusuusanno makaanada salaadu ay leedahay iyo meesha ay ka joogto aayaadka qur'aanka kariimkaa ku badan waxaa ka mid a ilahi caza wajalla wuxuu yidhi wastaciinuu biالصabri wالصalaah ina allaha maca aلsaabiriin kaalmaysta salaada iyo sabirka ilaahay caza wajalla wuxuu la jiraa kuwa sabra dad salaada waxaa loo kaalmaysanayaa wax allaale iyo wixii dhibao kaa hor yimaada adduunka waxaa loo kaalmaysanayaa salaad ma dhihin ilahay caza wajalla wax kalaa la kaalmaysa kaalmaysta buu yidhi salaada iyo sabirka waاstaciinuu bالصabri wالصalaة wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin ilahay caza wajalla wuxuu ammaanay kuwa salaada oga wاladiina yumasikuuna bاlkitaab وأqaamuu الصلاة ina la nudiicu أjra الmuصlixiin wuxuu ilaahay caza wajalla ammaanay kuwa salaada khaashiciinta ku ah qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun wuxuu ilaahay caza wajalla u ammaanay oo sheegay inay ka badbaadayaan hamiga adduunka iyo dhibaatadiisa iyo welwelkiisa kuwa salaadooda joogteeya siduu yihi ilahi caza wajal ina alinsana khuliqa haluuca إida masahu الsharu jazuuc وإida masahu اlkhayru manuuca إla اlmuصaliin aladiina hm عalى صalaatihim daa'imuun kuwa salaadooda had iyo jeer ka warqaba ee joogteeyahe waktigeeda ku tukada kuwaas ayaa ka badbaadaya oo laga soo reebay dadkaas sifooyinka xunxun lagu sifeeyey ee markii dhibaatadu taabatana welwelki iyo argagaxa badan markii ay xoogaa nicmo a helaana kibirka badan ayaa ilahi caza wajalla wuxuu ka soo reebay kuwa salaada daa'imiinta ku waxaan lagu soo khatimay sifooyinkooda markii la soo tiriyey والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون kuwaas weeye kuwa ilaahay caza wajalla uu ugu nicmeeyey oo ku karaameeyey jannooyinkiisa alla caza wajal salaada hadday makaanadaas leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu waajibiyey wakti hore maka isagoo jooga cibaadaadka kale oo dhan iyo waajibaadka kale o dhan zakadii iyo soonkii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo waajibaadkaas oo dhan dib baa loo dhigay ila salaa salaada iyada maka iyadoo la joogo
ayaa nabiga alayh salatu salaam iyo muslimiinta lagu farad yeelay lagu waajibiyey habeenkii israa walmicraajda 5 salaadood ayaa lagu soo waajibiyey nabiga alayh salaatu wasalaam intii ka horeysana galab iyo subax ayuu tukan jiray axaadiista saxiixa ee tirada badan ee bal aan dhegaysano qaar ka mid ah marka uu nebigu alayh salatu salaam ka hadlay salaadu meeshay islaam ka joogto wuxuu leeyahay nebigu alayh salaatu wasalaam ataanii jibriil ayaa ii yimi min cindi illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay xaggiisa ayuu iga yimi faqaala wuxuu yidhi ya muxammadow ina allaha caza wajala yaquul ilahi caza wajala wuxuu ku leeyahay inii qad faradtu calaa ummatika anigu waxaan ku faral yeelay ku waajibiyey ummadaada 5 salawaatin 5 salaadood faman waafaa bihina qofkii wafeeye oo keena 5 salaadood la yimaada calaa wuduu'ihina isagoo weesadoodii u dhamaystiray wa mawaaqiitihina waqtiyadoodiina ku tukaday wa rukuucihina rukuucdoodii dhamaystiray maa in rukuucda boogsiye wa sujuudihina sujuuddoodiina dhamaystiray kaana lahu cindii bihina cahdun aniga wuxuu igu leeyahay oo ah salaadahaas oofiyey uu ku leeyahay cahdun ballan buu leeyahay an udkilahu bihina aljanna inaan janno ku geliyo waman laqiyanii qofkii ila kulma qad intaqasa min dalika shay-an arrimaha wax ka dhimay falaysa lahu cindii cahd maaha qofkii ka tegey iyadoo dhan qofkii wax ka dhimay rukuucda sujuuddeedii dahaaradeedii waysadeedii waktigeedii waxaasoo dhan wax ka naaqusiyey falaysa lahu cindii cahdun ballan ma laha ballan ilahay agtiisa kuma laha maaha qofkii ka tegey qofka isagoo ka tegey meesha kuma jiro xaalkiisu maba yaallo meesha xaalkiisu meesha ma yaallo isago kuma jiro dadka laga hadlayo waa midka wax ka naaqusiyey qad intaqasa min dalika shay-an arrimaha lasoo sheegay qofkii wax ka naaqusiyey falaysa lahu cindii cahdun ballan ma laha agtayda in shi'tu cadabtahu haddaan doono waan cadaabi wain shi'tu raximtahu haddaan doonana waan u naxariisan taas waa taxta almashii'a mashii'ada ilahi caza wajala qofkii wax ka naaqusiyey ayuu ku jiraa wuxuu kaloo leeyahay nabiga alayh salatu salam xadiis labaad bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa wuxuu bayaaninayaa nebigu alayh salaatu wasalaam qofka iyo shirkiga iyo kufriga waxa u dhexeeya salaada udhexaysa waalkufr tarku salaa salaada inuu ka tago ayaa u dhexaysa hadduu ka tago wuu gaaloobay wayaqulu sala allahu alayhi wasalama xadiis kale wuxuu leeyahay saddexaad iclam waxaad ogaataa anaka laa tasjudu lilahi sajda uma sujuudaysid ilaahay hal sujuud ilaa rafaca allahu laka biha daraja ilaahay wuxuu kor kugu qaadaya darajo waxada canka biha khatii'a dembina wuu kaa dejinaya hal sujuudu wuxuu kaloo leeyahay nabigu alayh salaatu wasalaam ina alcabda addoonku idaa qaama yusalli hadduu istaago inuu tukado u istaago utiya bidunuubihi kulliha waxaa la keenayaa dembiyadiisii oo dhan fawudicat calaa ra'sihi wa caatiqayhi waxaa la saarayaa madaxiisa iyo labadiisa garab fakulamaa rakaca mar kasta uu rukuuco ow sajada ama uu sujuudo tasaaqadat canhu way ka daadanaysa garbihiisa iyo qoortiisaa lasoo saaraya mar kasta uu rukuuco o sujuudo way daadanaysaa dembiyadaas way daadanayaan wayaqulu sala allahu alayhi wasalam wuxuu kaloo leeyahay nebigu alayh salatu salaam awalu ma yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama shayga ugu horeeya oo lagu xisaabinayo addoonka maalinta qiyaamo salaatuhu salaadiisa weeye fain kaana atamahaa haddii uu dhammaystiro kutibat lahu taama waxaa loo qorayaa inuu dhamaystiray inay taam tahay salaadiisi inuu la yimi iyadoo dhamaystiran wain lam yakun atamahaa haddaanu dhamaystirin qaala allahu limalaa'ikatihi ilahay wuxuu malaa'igta ohanaya unduruu bal fiiriya hal tajiduuna licabdi addoonkayga ma u helaysaan min tatawucin waxyaala ziyaada ah salaado nawaafila fatukmiluuna biha fariidatahu oo loogu dhamaystiro waajibkii iyo fariidadii wayaqulu sala allahu alayhi wasalama nabigu alayh slat slam wuxuu leeyahay man taraka salaata alcasri waa hal salaad wey salaat alcasri xabita camaluhu salaad casar ninkay ka tagto oo uga tagto
isaga oo ulakac uga tegey xabita camalu camalkiisii waa buray waa baaba'ay wayaquulu sala allahu alayhi wasalama isagoo fadaa'ishii salaada ka hadlaya nebigu alayh slat slam wuxuu yihi man salla subxa qofkii salaada subax tukada fa huwa fii dimati illah wuxuu ku jiraa dimada ilaahay iyo ballantiisa iyo cahdigiisu ku jira falaa yadlubkum allah ilaahay yuu idinka dalbin dimadiisa yuu idinka dalbin bishayin wax isaga cahdigiisa iyo ballantiisa ku jira inaad ku xadgudubtaan ama ballan uu idinla galay aydan aan waxba ka keenin iska jira fa ina man yatlubuhu min dimatihi bishay qofkii ilaahay caza wajalla uu shay ka dalbayo uu ku daba joogo wax ku leeyahay yudrikuhu gaaraya uma yakubuhu calaa wajhihi fi naari jahannam markaas ayuu naar weji ugu tuurayaa wuxuu kaloo leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam afqalu salaati salaada ugu culus cala almunaafiqiina munaafiqiinta salaatu alcishaa'i salaada cishaha weeye wa salaatu alfajri iyo salaada fajr walow yaclamuuna ma fiihima hadday og yihiin waxa ku jira ajar la atowhumaa way iman lahaayeen walow xabwan iyagooba gurguuranaya ha noqote oo caloosha ku socda salka ku socda walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura bisalaati fatuqaam salaaddii inaan amro oo la aqimo uma aamura rajulan dabadeedna aan nin amro fayusaliya binnaas dadkii uu tujiyo uma antaliqa maci dabeedna aan kaxaysto birijaali rag aan kaxaysto macahum xuzamun min xatab iyagoo wata xirmooyin qoryo ah ilaa qowmin oo aan u tago oo guryaha ugu tago rag laa yashhaduuna asalaata salaadii aan imanayn yani jamaacada aan imanayn fa uxariqa calayhim oo aan ku gubo buyuutahum binnaar guryahoodii aan dab ku suro oo aan dab ugu gubo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam ma min halaahatin min qaryatin walaa badwin ma jiraan 3 nin oo tuulo jooga ama baadiye jooga laa tuqaamu fiihim asalaa oo salaada aan dhexdooda laga ogin oo aanay jamaaco ku ogin oo aanay salaaddii tukan ila istaxwada calayhim ashayطaan ilaa waxa qabsaday oo hantiyey dadkaas shaydaan baa ixtilaalay facalaykum biljamaca jamaacada laazima fainamaa yaأkulu الdi'bu alqaasiya ruwaagu wuxuu cunayaa ariga midda ka leexata ee dhinac marta ayuu cunaya wuxuu kaloo leeyahay nebigu alayh slat slam isagoo salaada jamaacada ka hadlaya iyo fadligeeda salaatu الrajuli fi jamaacatin taziidu calى salaati الrajuli waxdahu 25 daraja salaada ninku uu tukado fi jamaacatin jamaaca ku tukado taziidu waxay ka siyaadsan tahay calى salaati الrajuli waxdahu ninka keligii salaada uu tukado walow uu cudur la-aan yani isagoo cudur daar leh meel uu ku tukado 25 daraja 25 daraje ka saraysaa wayaqulu sala allahu alayh wasalama man samica annida'a qofkii maqla adanka qofkii maqla falam ya'tihi oo aan iman falaa salaata lahu salaad ma laha ila min cudrin cudurdaar inuu yeesho maahine salaadiis waxba kama jiraan wayaqulu sala allahu alayhi wasalama alaa adullukum miyaan idin sheegahin calaa maa yamxu allahu bihi alkhataaya waxuu ilaahay caza wajalla ku tirtiro dembiyada wayarfacu bihi darajaatna uu jannada kor ugu qaado qofka isbaaqu lwudu'i cala almakaarih qofku inuu waysada dhammaystiro wa kasrati alkhutaa ila almasaajid masaajida oo uu tallaabooyinka u badiyo waintidaari asalaati bacda asalah salaad uu salaad kale ku sugo fadalikum alribaad buu yihi nebigu alayh slat slam sabirka nafta la sabirsiiyo kaas weye wayaqulu sala allahu alayhi wasalama bashir ilmashaa'ina fi dulami waxaad ugu bishaaraysaa dadka socodka badan fi dulami waktiyada mugdiga ah ila almasaajidi masaajida u socda binuuri taami yowma alqiyaama nuur iyo iftiin dhammaystiran ugu bishaaray ayuu leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam salaada waxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah noloshiisa oo dhan shayga waxa weeye uu ku nicmaysto oo ku macaansado oo ku qabowsado noloshiisana salaad la-aan qofka muslimka ah nolol jirta ma aha nolol jiri kartana ma aha mana tirsana
إلا ترينا معها وهو الإسلام يجب ما قبله به النبي عليه الصلاة والسلام قفكو إسلام كادو صوغله وحي هردان حساب مره مركز بالله بالعابي أو بوغي سلفوري بوغي سمركز سلفوري قالك مركز إسلام صوغله هدو إسلامه وحي هردان والله داف وكأنما ولد الآن إنه هذا شيء وكلو نغني مركز قفك أنتو كان مسلم هدنا كما عابا وقف عن نولين إسلام كحساب عن كل حي أو وحبا عن أتر سنين وحلا ليوحو سميطان وأنا قال لك أنه حكم تارك ثلاث وكال لضن وحكالته إلهي عز وجل أفري تدك مسلمين قري قود إلى صلاة كوه كان قريوه هذا يكدقان قرية مسلمين أو صلاة أي مال كل هذا أو قرية حتى مساجدك سميان وهوانك أي كنتو كذان عرورتا رقوا أي كنتو كذان نوافشة أما صلاة السنة ومسجد أما مال مصلاة قرية لغو سمي oo carruurta iyo xaasaska iyo dadka guriga jooga lagu kontrolo oo la weydiiyo sidoo Ilaahay Azza wa Jalla uu yiri wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal-'aqibatu lit-taqwa wa 'ala yiri ahlkaaga far oo ku amar salaada oo ku xambaar anaga kuma weydiisaneen maxaa rizqa meesha loo keenay waayo dad badan baa waxay ku cudur daaranaya oo ku marmartiyoonaya anigu waa mashquul baan rizqoodii baan iska shaqeynaya maana anu salaadooda iyo maxaan ka ogahay maxay ogeysiiyay salaadooda maana daba geli kara maana waxa ku mashquuli kara maana waxa weydiin kara marka meeshaasi cudur daarka loo gooyo oo Ilaahay Azza wa Jalla wuxuu yiri nahnu narzuquka rizqana qasina rizqana ka falqaad Ilaahay Azza wa Jalla reerkaaga iyo ehelkaaga salaadu ku صلاته كنترول أنبياء إلهي وكأمانه سيد النبي الله إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وأمر جري الكيسة صلاة الزكاة يأمر جري وكو حبار جري مركا قط وحل ربا قول جيتا إنه نغضوه قولي صلاة لقوه وإلهي عز وجل لقوه حصوه oo salaadaha nawaafishana uu ku tukado ninku ama salaada jamaacada ragga waxay ku tahay waajib cala sahih culimada qaar waxay yiraahdeen waa fardu ayn qaarna waxay yiraahdeen waa fardu kifaaya qaarna waxay yiraahdeen sunna muakkada qaarna waxay yiraahdeen waa shardi oo salaada maba ansaxayso illa bil jamaa oo qowlkaas imam malik iyo ibn hazm oo ظاهري oo qayb ka qaatay ayaa ku tagay وعليه الصلاة والسلام في الحديث هذا عن صوت شيخني من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذره حديث كاتب دليل شديد وقال لي النبي عليه الصلاة والسلام أدنك مغلى وعن صلاة إيمان وعن صلاة بلها هذا عذر دار لها عذر دار كاتب نوعنا إما مرض وإما خوف مرض إن يجره كنت مع ضوء وعذر أنه لتي كريم إن عبست مع ضوء نفسي مثلا أبقى دل يوحداثه عذر دار تاسو كلام كويس وإلا هذه كانت هو إنه صلاة جماعة وتجاه مركز صلاة جماعة أفر تاس قولي كل يهين علماء وأقول راجح سن والله تعالى أعلم قول كأه هو الريوة إني واجب تاي واجب إني تاي فرض عين كتاي رجع أعيانها رجع قانجار كأه إني واجب كتاي هذا كتجان آثمين أي نقونية لكن هذه تكلم صلاة وأنصحها صلاة وأنصحها لكن مع الإثم دم بقارن وهكذا تقع صلاة لفظ برواه خشوعة إلا خشوع صلاة أو أي خشوع لا بهاي أركان تدوى وين ويه أو أي صلاة اللي لنا قيمة أدانا خشوع لهين وهي لها خشوع كينيا إن شاء الله تعالى وحمان كتابنا إياه لكن وعن إن شاء الله تعالى وحكت التلمامية وعناوين تكلية كتلمامية صلاة الجماعة هي فضلك إلى هاي هي الرجل سيدا لو قبها هي هنا مساجد وقلت كذان هي قفك كتك صلاة وحا حال في سي حكم في صون قني هرت فضائش إلى هاي صلاة رجل يكتب كذان جماعة فضلك سوين كسكو صلاة قل أهان إلى هاي
salaada jamaacadu san sheegnay waxay ka badan tahay salaada fardiga qof keligiis u tukado 25 ama 27 xadiiska laba riwaayadood. arrinka labaad, salaada jamaacada ilaahay caza wajalla jamaacada uu la tukado qofka wuxuu ilaahay kaga rabaa shaydaan. haddii kale shaydaan baa gooni ku cunaaya, intuu keligiis noqdo shaydaan baa gooni ku cunaaya. sida yani weerku u cunayo neefka ariga cidlada maray ee goonida u baxay keligiis, ayaa qofka isla keligiis goonida ku tukaday shaydaanku meel cidlaa ugu cunaya. marka salaada jamaacada waxay u tahay cismatun min ashaytaan, shaydaankii bay ka badbaadinaysaa. waxay kaleeto oo ziyaadinaysaa fadliga jamaacadu, wuxuu la ziyaadaa cadadka jamaacada. kulama laba markay noqdaan way ka fadli badan tahay keligii markuu tukado, 3 markay noqdaan way ka fadli badan tahay markay labadooda tukadaan, 5 markay noqdaan way ka fadli badan tahay saddexdooda markay tukadaan, 10 markay yihiin way ka fadli badan tahay 4 markay yihiin, 100 markay yihiin way ka fadli badan tahay jamaaca 20 ama 10 ama 15 way ka fadli badan tahay. kulama kana akthar, markasto ay badan tahayna kana adyab, ayay sii fiican tahay fadli badan tahay ilahay agtiisa. salaada jamaacada qofkii 40 beri ku tukada weliba takbiirada gaara waxa weeye ilaahay caza wajalla wuxuu ka badbaadinayaa naarta iyo munaafiqnimada labadaas. 40 cisho hadduu ku tukado jamaacada oo si toosa uu u idraako takbiirada ixraamka imaamka, waxa weeye ilaahay wuxuu ka badbaadinaya naar oo baraa'a ka siinaya inuu qofkaasi ka badbaado beri kay noqdo iyo munaafiqnimo. munaafiq intaa iskuma xariirin karo. arrinka shanaad waxa weeye qofku markuu salaada subax u tukado oo jamaacada ku tukado, damaanada ilaahay caza wajalla buu ku jiraa ilaa uu ka gabaldhacsado. midda kale waxa weeye qofka ilaahay caza wajalla salaada fajr intuu tukado meeshiisa ilaahay caza wajalla ku xusa ee hadda ragcateynka ku tukada wuxuu leeyahay ajr cumra iyo xaja oo buuxda. salaada cishaha iyo salaada fajrka gaar ahaan oo jamaaca lagu tukado waxay leeyihiin sawaab gaar ah oo si gaara ilaahay caza wajalla u xusa. waa waqtiga ee malaa'igtu ay salaadaas ka marag noqonayso. malaa'igtu waxay kulantaa salaada casr iyo salaada fajr. haddaanu qofkii joogin masaajidka absenti baa loo qori. ilaahay caza wajalla wuxuu aad ula cajabaa oo jecel yahay salaada jamaacada ah ee badan ee lagu tukado jamaacada. qofka salaada jamaacada sugaya waa qof salaad ku jira, walow qablaha waqtigeeda u yimaado wuxuu ku jamaac ku jira, salaad buu ku jiraa. xukunkii wuxuu haystaa qofkii salaada ku jiray oo kale hadduu masjidka fadhiyo. malaa'igtuna way u ducaynaysaa oo inta uu masjidka joogo oo salaada uu sugayo ama kadibba marka uu tukado, malaa'igtu way ducaynaysaa waxay leedahay allahuma akfir lahu, allahuma arxamhu, ilahu naxariiso, ilahu dembi dhaaf ayay leedahay. fadliga safka hore wuxuu leeyahay fadli gaara. dhinaca midigta imaamka waxay leedahay fadli kasii duwan meelaha kale salaada jamaacada lagu tukado. ilaahi caza wajalla wuxuu u dembi dhaafaa qofkii aamiintiisu ay waafaqdo aaminta malaa'igta, yani malaa'igtuna way aaminsanaysaa markii imaamku wala daalliin aamin u yidhaahdo, aamintooda malaa'igtuna way la ta'miinsanaysaa. marka qofkii ta'miinkiisa iyo aamintiisu ay iswaafaqaan iyo aaminta malaa'igta, waxa weye ilahi caza wajalla wuxuu siinayaa dembi dhaaf. loo socdo masaajida oo la aado salaada lagu tukado, iyadana fadliga ay leedahay. horta ilaahay caza wajalla qofkaas aad buu u jeclaadaa, wuxuuna ilaahay ku haraya harkiisa maalinta qiyaama. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid, rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid ayaa kamida dadka ilahay caza wajalla maalinta qiyaama uu harkiisa ku harayo. darajaadka ayay kor u qaadaa sida xadiiska haddaan maqlaynay oo nebigu calayhi salaam uu yidhi, miyaanan idiin sheegahayn wax darajaadkana kor loogu qaado dembiyadana lagu dhaqo? waxa weye masjidka oo wax badan loo socdo ayaa keenaysa. marka salaada oo la aado, jamaacada la aado oo masjidka la aado, wax badan loo socdo, darajaad baa ilahay kor ugu qaadaa, dembiyadana ilahay wuu ku tirtiraa. waxaa loo qorayaa xataa gurigiisa markuu u socdo oo u noqonayo sidii isagoo salaadii u socdo oo kale ayaa loo qorayaa. waxa ilaahay caza wajalla uu ku tirtirayaa dembiyadiisa tallaabo kasta oo uu qaadayo oo gurigiisa iyo kasoo socodkiisa iyo usocodkiisa u qaadayo ayaa lagaga tirtirayaa.
waxa dembigiisa lagu tirtiraya marka uu socdo salaada jamaacada oo uu gurigiisa ku soo weesaysto weysadaas ayaa dembigiisaba dhaqaysa intaan salaada la gaarin waxa ilaahay u diyaarinaya jannada ugu diyaarinaya diyaafo iyo martisoor qof kasta oo masjidka u jarmaada u gacaraada ka soo noqda ilaahay caza wajalla mar walba uu aado oo u dhaqaaqo ilaahay wuxuu u diyaariyaa martisoor ayaa jannada loogu diyaariyaa cusub marka bal tirso inta martisoor aad meesha ku leedahay qofkii jamaacada aada oo laga hormaro min ahliha wey ilaahay caza wajalla ajirkii oo kaleeto ayuu u qoraa qofkii gurigiisa ka soo baxa oo soo weesaysta isagoo gurigiisa kusoo weesaystay oo salaad soo aaday inta uu soo socdo salaad buu ku jiraa kaanama huwa fi salah fa huwa fi salaatin ilaa uu ka soo noqdo salaad xukunkeedii buu ku jiraa walidalika ayuu amray nebigu alayh sala slam inaan la ordin maxaa ordaysa salaad baaba ku jirta qof salaad xukunkeedii ku jiraa mar haddaad guriga adoo weesaystay ka soo baxay salaad usoo socoto tartiib baa la rabaa ina usoo socoto kabash kabash iyo ord maaha qofkii usoo baxa salaada jamaacada usoo baxay isaga oo soo weysaystay wuxuu la ajar yahay qofka xaajiga ah ee muxrimka qof xaajiya ee xarman ayuu la mid yahay oo ajarkiisa uu leeyahay qofkii salaada jamaacada usoo baxa damaanad ilaahay caza wajalla buu ku jiraa insurance ilaahay agtiisa ah buu ku jiraa maaha insurancega gaalada iyo meelaha maaragtay xafiisyada lacagta lagu bixiyo ee bilaashka ah ma aha waa insurance ilaahay caza wajalla agtiisa damaanad buu kaga jiraa waxa qofka salaada u socda intaasoo dhan waa mashiga salaada la aado loo socdo ayay fadaaishaas oo dhan ay ku imaanaysaa waxa weeye qofku markuu u socdo salaada ee lugihiisa uu ku socdo waxaa isku diriraysa malaa'igta mid walba inuu qoro tallaabooyinkaas iyo socodkaas inuu qoro ayay ku dirirayaan malaa'igta ilaahay caza wajal salaada jamaacada oo loo socdo waxay ka mid tahay asbaabta sacaadada adduunka iyo aakhirada lagu helo salaada jamaacada oo loo socdo waxa weeye inuu ilaahay caza wajalla uu karaameeyo qofka beytkiisa soo ziyaartay gurigiisa imanay ilaan masjidku waa beytkii ilaahay caza wajalla marka qofka soo ziyaaranaya qof hadduu gurigaaga kugu yimaado waad karaameynaysa waa martisooraysa ilaahay caza wajalla dadka gurigiisa soo ziyaaranaya salaada u imanaya ilaahay caza wajalla wuu karaameeyaa ilaahay caza wajalla wuu ku farxaa addoonkiisa marka uu usoo socdo masjidka isaga oo weyse qaba ayuu ilaahay caza wajalla ku farxaa sida midkiin ugu farxo qofkii ka maqnaa ee safarka ka jiray ee ehelkiisa ahaa markuu soo noqdo sida ugu farxo si ka daran ayaa ilahay caza wajalla ugu farxaya marka uu addoonkiisu masjidka u yimaado ee uu soo maqnaado maalinta qiyaamo ilahay caza wajalla wuxuu siinaa nuur taam ah iftiin hortiisa iyo gadaashiisa iyo midigtiisa iyo bidixdiisa ah ayuu ilahay caza wajalla u siinaya waxaa halkan aan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo marka masaajida iyo jamaacada la tegayo ko waxa weeye qofku inuu gurigiisa kusoo weysaysto oo weysada uu soo dhammaystiro arrinka labaad waxa weeye rawaaixda xunxun waxyaalaha uraya ee aan fiicnayn inuu ka fogaado toonta basasha oo si gaara nusuusta ay u taabatay waxa lamida kasii xun sigaarka iyo wax lamida ee uraya ee dadka adyadaynaya ee malaa'igta adyadaynaya ee musalliinta adyadaynaya oo dhan waxaasoo dhan waa laga saaray nebigu alayh salaatu wasalaam uu ka bixin jiray masjidka qofka toonta ama soo cuna uu ka bixin jiray masjidka cumarna radia allahu tacaala canhu qof markuu arko toon soo cunay ama basal soo cunay kasoo carfayso masjidka uu ka saari jiray wuxuu dhihi jiray nebigu alay baqiic buu u saari jiray in masjidka laga bixiyo kilkilooyinka la qabto labada dhinac laba nin ka qabtaan yaa la kaxayn jiray wax masjidka inta laga saaro yaa waxaa la geyn jiray baqiic yani qubuurta meesha baqiic ku taala masjidka nebiga alay cabaar ka fog ayaa la geyn jiray hadda waxa weeye dadka sigaarka ku cabaya ee ku dhibaya dadkana way kasii daran yihiin kuwa maxaa yeelay waaba xalaal weeye basasha iyo waxaa la diidaya masjidka inay la yimaadaan kaas isaga waa xaaraan waxa kaleeto oo kamid ah qofku inuu ziinadiisa masjidka usoo qaato yani dharkiisa wanaagsan ee quruxda badan ee udgoon kale inuu soo qaato ilaa dumarka iyo udgoon iyo bukuur inay soo shitaan ma aha ilahi caza wajal wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu khuduu ziinatakum cinda kuli masjid marka dharkii hurdada oo kale inuu maaragtay masjid ku yimaado ilahay ku hor istaago waa arrin aan loo baahan aadaabtan aan kamid ahayn
mashiga salaada loo socdo aan ka mid ahayn. qofku inuu siinadiisa ku yimaado, dharkiisa wanaagsan ku yimaado. adigu hadda bijaamada bahasha aad ku seexato miyaad la hortegi lahayd hadda haddii lagu yaabo boqorkaad qaabilaysaa ama waxaad qaabilaysaa midka shaqada kuu madaxa kuma aadan qaabisheen waxaas ugumana tagteen. laakiin masjidka ilaahi caza wajal ilaahay markaad hor istaagayso inaad maryahaas oo kale aad usoo qaadato ma waxaa la rabaa qofku ziinadiisa inuu soo qaato. waxaa kaleeto oo qofka loo bahay aadaabteeda ka mid a ducadii khuruujka gurigiisa markuu kasoo baxayo, ducada kasoo bixitaanka guriga inuu ku ducaysto ee niyadda salaada uu kusoo baxo bismi illahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah oo gurigiisa markuu kasoo baxay masjidka markuu soo gelaya uu kusoo galo ducadii masjidka. waxaa kaleeto oo ka mid a farihiisa inaanu isdhex gelin inta uu salaada ku jiro ama masjidka uu socdo inaanu isdhex gelin. waxaa kale oo ka mid a inuu tartiib usoo socdo, sakiine iyo waqaar, degenaan iyo xasilooni inuu kusoo socdo masjidka oo orod iyo kabash kabash aanu kusoo socon. maxaa yeelay salaad buu ku jiraa. qof salaad ku jiro orday miya jira? ma jiro qof salaad ku jiro orday. marka salaad buu ku jiraa qofku mar hadduu soo weysaystay oo gurigiisi kusoo weysaystay oo masjidka uu socdo, tartiib inuu socdo. markuu soo gelayo masjidka waa inuu lugtiisa midigta ah waa inuu soo hormariyaa marka uu soo gelayo. waa inuu salaamaa masjidka dadkii jooga markaa salaan ay maqli karaan, assalaamu calaykum waraxmat ullah, salaan ay maqlayaan iyo dadka agtiisa agaarkiisa jooga isagoon tashwiish ku samaynayn waa inuu ku salaamaa. waxaa kaleeto oo aadaabteeda ka mid ah in uu tukado taxiyat almasjid, inaanu fariisan ilaa uu 2 ragco tukado. 2da ragcona waxa weeye masjidka salaantiisa weeye, masjidka salaantiisii weeye. markuu dadka salaamay masjidka muxuu ku salaamaya? wuxuu ku salaamaya 2 ragcadood wakti kastaba ha noqoto, wakti nahyiya xataa awqaat nahy bacd alcasr iyo bacd alfajr iyo wakti kastay tahay. waxa raajixa culimadu ay leeyihiin hadday salaadu sabab leedahay waa la tukan karaa wakti kastaba ha noqote. wakti kastoo aad soo gasho marka masjidka waa tukan kartaa taxiyat lmasjidkaas. haddii laakiin iyadoo salaad masalan loo taagan yahay aad soo gasho salaadii bay dhex gashay oo uma baahno marka taxiyat lmasjid. haddii uu kabihiisa bixiyo oo meelaha kabayawga la qaato oo meela gaar aan la dhigo aan lalahayn oo ay noqoto inuu kabihiisa agtiisa dhigo, waxaa loo baahan yahay inuu lugihiisa hoostooda u dhigo. waxay aada ugu badan tahay dhulkeena iyo soomaaliya iyo meelahaas iyo markii la tago oo qofku kabi u soo qaadanaya ama horta udhiga. meelaha carabahana way ka jirtaa, xaramka oo kale way ka jirtaa, xarameynka 2da masjid ee maaragtay maka iyo madiina. dadka caamada ma yaqaanin wuxuu dhigaya horta sujuuddiisu dhigaya ama qof kale gadaashiisu dhigaya, qof kale sujuuddiisu dhigaya. waana qalad khata weeye. nebigu alayhi salaam wuxuu yidhi midigtaadana ha dhigin, hortaadana ha dhigin, ama bidixdaada dhig haddaan cid joogin. haddii kale 2da lugood dhexdooda dhigo, 2da lugood dhexdooda hoostooda dhigo. adiga un baa ku fadhiisanaya markaa, cid kaletana kuma adyadeynaysid. sujuuddaadiina ma noqonayso meeshii sujuuddaada ahayd ma noqonayso. waxaa kaleeto loo baahan yahay haddii uu soo galo inuu doorto hadduu heli karo dee safka hore inuu fadhiisto, midigta imaamka dhinaca xigana hadday u fududaato ayaa fadli badan inuu fadhiisto. waxaa kaleeto wanaagsan isagoo qiblada usii jeeda inuu markaa u fadhiisto oo qur'aanka uu akristo, qur'aanna uu akristo ayaa maaragtay aadaabteeda salaada jamaacada iyo masjidka imaanaya ka mid ah. waxaan halkan insha allahu tacaala ku sheegaynaa bacd fawaa'idda qaarkood oo maaragtay laga helayo salaada jamaacada. waxa weeye kow horta ilaahay caza wajalla wuxuu inoo jideeyey dadka muslimiinta waktiyaal mucayana oo ay kulmaan, oo ilaahay caza wajalla ijtimaacooda iyo isu tagooda ayaa ilaahay caza wajalla u jideeyey 5taa waqti inaan isugu nimaadno. waxaan ku cibaadaysanaynaa isu tagga waktiyadaas laynoo xadiday oo laynoo cayinay. waxaa kaleeto fawaa'ideeda ka mid a inay keenayso isjeclaan iyo xiriir dadka muslimiinta ka dhexdhaca mar hadday masaajidka wada imanayaan oo salaadii jamaacadii soo wada tukanayaan inay sarkaan, iska warqabaan, kii jiran laga warqabo, kii maaragtay baahan laga warqabo, kii dhibaato ku dhacday laga warqabo, kii wax lasoo darseen laga warqabo, kii maqan markaa la tego. waxyaalahaasa imanaya. laakiin haddaanay jamaacadii inay daryeelin oo salaadii inay daryeelin waxay noqonaysaa inay tafaruq ku yimaado ayaan isgaran. waxaa kaleeto ka dhasha tacaaruf, ka muslimiinta markay masjidka had iyo jeer ku kulmaan oo tacaaruf ku kulmaan inuu dhexdooda tacaaruf uu ka dhaco.
وحكلته صلاة جماعة هاي إن لموجيه شعار الإسلام شعيرة الإسلام ويني وأنا أعظم شعائر الإسلام وياه وحكلته لموجينا عزة ذاتك مسلمين تاي عز جود هي شرفته إنه موقته وحكلته فوائد إذا كم إذا قف في جاهل كان وحلا بره أو مركه ماشي وحكو برته وحكله أكمل صلاة جماعة قف في صلاة جماعة كتخلفية كهرية إلا اللي مجليه وحكلته أكمل فوائد إذا ومضى مسلم إن اجتماع اللي ستجر هي تفرق الآن خلاف الآن هذا إن يمارس أي كرديسو أو أي برتان سيدو كالاتك مسلمين تاي إن نفترض الضبطيان أو واختيال معينة أو حددا أي مساجد تجيان إن نفترض الضبطيان بكنيسة وحكلو كنيسة مسلم إنه مارس التاجية صفك جهاد كأوكل إنه تاجية ومسؤولية وهذه جار درام أي كنيسة وحكلو كنيسة كمسلمين تا إن نفرق ودي حيلين أو يصفك والاستاجان كي غني هاي كي فقير كاي كي مدحضة هاي كي كلا المدحضة هاين يدمان إنه يستاجان وهكذا فوائد بركات كانوا إلهي كسو دجيو اجتماع مسلمين مساجد يفوق المان وحا كسو دجاه بركات با إلهي عز وجل كسو دجياه وهكذا قفكم مسلم كاو زيادين سا نشاط قفكم مسلم كاو مركو ضدك مسلمين تا iyo نشاطكو iyo wuxuu markuu arko masaajida isagana nashaad baa u siyaadaya waxa u siyaadaya xasanaat ilaahi azza wa jalla iyo thawaab oo ilaahi azza wa jalla u kordhinayo dacwada ilaahi iyo diinta ilaahi dadka loogu yeero ayay maaragtay iyadana ay u kordhinaysaa waxa hada insha Allah ta'ala aan jeclahay inaan ku soo khatimo waxaan soo sheegay salaada waxyaalaha ugu waaweyn ee lafdhabarta u ah waxa weeye khushuuca ilaahi azza wa jalla wuxuu ku xiray salaada in liibaanta laga helo iyo wanaag iyo guusha adduunka aakhirada inay khushuuc leedahay khushuucaas waxyaalo badan baa keeni kara laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa dhowr arrimood insha Allah ta'ala muhiima arrin koowaad waxa weeye waxyaalaha khushuuca keena in qofku salaada mar horeba uu isu diyaariyo oo diyaar u yahay weysadii iyo tahaaradeedii iyo isu diyaar garaynteedii oo waqti fiican uu isu diyaar garayo waxa kaloo kamid ah inuu salaadiisa tuma'niino ku leeyahay salaada xasilooni uu u tukado degdeg aanu ku jirin salaada waxa kale oo kamid ah waxyaalaha keena khushuuca inuu mawdka xusuusto salaada dhexdeeda inuu mawdka xusuusto sida nabiga calayhi salaam xadiiska uu ku yiri udkur al-mawt fi salatika salaada ku xus mawdka ku xus fa inna ar-rajula idha dhakara al-mawt fi salatihi la hariyun an yuhassina salatahu haduu qofku salaadiisa mawdka ku dhex xusuusto waxay u dhowdahay inuu salaadiisa wanaajiyo wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghayraha waxa tukata salaad nin umalaynaya ama qof umalaynaya salaada ma inaan tukanayn arrinka afraad waxa weeye in aayaadka la akhrinayo ama aad akhrinayso aad tadabbur ku samayso falaa yatadabbaruna alqur'aan aayaadka macaanidooda aad u fiirsato waxa kaloo kamid ah quraanka in tartiil lagu sameeyo quraanka si fiican u akhriyo qofka codkiina uu ku wanaajiyo oo waxyaalaha keenaya khushuuci kamid tahay waxa kaloo kamid ah inuu ogaado in ilaahi azza wa jalla uu jawaabayo faatixada markuu akhrinayo ilaahi azza wa jalla uu jawaabaya sida nabiga calayhi salaam uu inoo sheegay oo qofku markuu alxamdulillahi rabbil alamin ilaahi wuxuu leeyahay adoonkayga waa in mahadiyay saas oo kaleeto inuu marka arrinkaa shucuuriyo ilaahi inuu hortaagan yahay oo ilaahi u jawaabayo waxay keenaysaa salaadiisa inuu wanaajiyo waxa kaleeto kamid inuu sutra u tukado sutrada inuu hortiisa dhigo ayaa waxyaalaha khushuuca keena maxaa yeelay nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi qofkiin hadduu tukanayo sutro iyo shay ha u tukado si aan shaydaanku salaadiisa uga goynin marka shaydaanku salaadu kaa khalkhalinayaa waswaas buu kaa gelinayaa dhibaato kaa gelinaya marka sutro ayaa loo baahan in la dhigto inay waajib tahay iyo inay sunna mu'akkada tahay waa laba qowl culimadu ay ka leeyihiin wallahu ta'ala aclam waxa weeye inuu fiiriyo meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyo waxyaalaha keenaya bay kamid tahay in uu ku khushuuco salaadiisa waxa kaleeto kamid ah oo iyadana sunnaha mu'akkada inuu fartiisa dhaqaajiyo marka tashahudka uu farta dhaqaajiyo nabigu calayhi salaam wuxuu shaydaanka way kaga adag tahay maaragtay aad ba shaydaanka ugu adag tahay marka uu dhaqaajinayo farta waxa kaleeto kamid ah suuradaha uu ku tukanayo inuu kala duwo waxa kale oo kamid ah ducada inuu ku dadaalo waqtiyada sujuuda iyo maaragtay marka uu tashahudka u fariisto ka bacdi waxa kamid ah adkaarka salaada ka hor iyo kadib inuu akhristo waxa ugu dambeyn muhiim ah inuu ka daahiriyo meesha uu ku tukanayo wax allaale iyo wixii mashquulinaya ama sawiro ama waxyaalo calaamada ama waxyaalo maaragtay loo jeejeedo oo nala iyo waxyaalo saasa
وحي مشغولين كرا ومشغولين أكينية إنه كالظاهرية وكقاضوا ماشيسا. أخيرا أيها الإخوة قفكي صلاة كتغا حكمكي سمحون قنية صلاة هدو قفك كتغا صلاة سيدة إلهي أوينيي وكتابك سيدة أوحصي وأنبيادي سودان وكواجبي ومضى مسلم كان من فوق 7 سماوات نبي عليه الصلاة والسلام لو ياري إلى فوق سدرة المنتهى إلى فوق 7 سماوات إلهي ستوص وسو واجبيي اللو سو ديبي إلهي أجعليهي الضماني تحرير كدحيي قفكي كتغي waxaas fadaa'il laga soo sheegay ka tagay oo banaan ku tuuray idinka idin weydiinaya oo jawaabta idinka ayaa ka jawaabaya waxaas oo aayada iyo waxaas oo ahadiisa iyo waxaas oo fadliya iyo waxaas oo aadaaba iyo waxaas oo faa'iida haduu banaanka ku tuuray muxuu islaamku u haray ayu islaamin baqiyana muxuu islaamka loo sheeganaya wax islaam oo kale u haray qofkaas ma jiro xukun ahaan culimadu waxay leeyihiin hadii qofka salaada uu kas uga tagay كسد وجتجي وكافر بالإجماع بين العلماء ويكون إجماع سيء كل سيء إنه اسكو خلاف إنه هدو إنكريه أو ليس الله يقوم لها يقوم واجب واحساس وموجنيه إن آنو إسلام ككجنا قفاس هدي لكن كسل إيو ماركتي عاجز نمو إيو حيالة وجتجي لبقى قول بيك يشان قالوا وحي تري وقال كيهرو لم يديهاي وحو كدون يامن اما كسر هو تب اما عاجز نما هو تب اما انكراب عضه هو تجي اسكو مدوي مربه هدو كتجي صلاه حديث النبي عليه الصلاه والسلام مكر صار فمن تركها فقد كفر بو النبي عليه الصلاه بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام تفسير marka anaga maxaa u kala saarayna maxaa u kala bixinayna mid caajis uga tagay iyo mid wax kale uga tagay nabi عليه السلام luqa carabiyo ku hadlay وانا عدي وركا waxay yiraahdeen marka wax kale oo loo barbaarayo oo loo raadinayo male sidaas uu yiri nabiga kaleey salaam weeye xukunkan ku xukumayna qofkii ka tagay wuxuu doonay uga tago isaga ilaahay iska dhaxaysa laakiin gaalnimo ayuu sidoo nabiga kaleey salaam ugu xukumay uu yahay qolna waxay tiri ma xadiis kale sidii xadiiskii hore ayay weheshadeen xadiis quraan lahayn oo yiri nabiga kaleey salaam qofkii la yimaadana ballan buu ilaahay ku leeyahay qofkii aan la iimaanna oo wax ka naaqusiyana إلهي بلنكم الله إلهي هدو دوننا وعذابية هدو دوننا ونحرسانية وحيرانين هدو دوننا ونحرسانية هدو دوننا وعذابية قال متى ما ضحوهم جزكم سوى دكتور وحيكم سوى دكتور قف مسلم عاصية مركا عاصي وفاسق وإلا حراء هدو سلاد تكون وهي مركا للدلاء حتكيسو وقتل وي ساسي يقول هذا حقا فضوضيسي هذا يشوح الرجحان والله أعلم ومارت أدلة المدائني كحق بضنتهي علماء معاصرين تا انتو بدن اي ماركتي اي رجحيان والله تعالى اعلم انه قف كاسو دينتو كغا بخايو هدي او صلاتي تكن نسال الله السلامه وتعالى العافيه ضالين المسلمين بعد سنه الله عز وجل وحنا برينا سو هنونيو انه الله عز وجل دينتيسو كسو دبالو انه الله عز وجل نغو توسيو جديده توسن صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.